الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii Kasmo iyo Kaskaaga qaybtiisa afraad oo aynu maanta kusoo qaadan doono dawladnimada. Dawladnimo waa maxay? Waxaynu odhan karaa waa maal, muruq iyo maskax la mideeyay oo loo yeelay hoggaan mid ah, kaasoo awoodda la mideeyay ku ilaaliya dhaqanka, dadnimada iyo duunyada bulshada. Haddii awooddaas saddexda ka kooban la isu geyn waayo, waxa dayacmaya danihii bulshada ee ilaalinta u baahnaa. Kadibna waxa baylah noqonaya dhaqanka, nafta iyo maalka ummadda. Waxaynu odhan karaa maanta waxa lagu dadaalaa in saddexdii aynu soo sheegnay ee marka la mideeyo dawladnimo iman lahayd in dhinaca reernimada loola cararo, dawladnimadana lagaga masuugo ama loo quuri waayo. Maanta qabiilka waxa uu heli karaa dhalinyaradiisa, odayaashiisa, haweenkiisa, aqoon-yahankiisa, wadaad iyo wabiinba, iyo dhammaan dadkii uu dhalay. Markaa wadajirkii bulshada waxaa kala soocanaya oo kala qaybsanaya qabiilooyinka. Mid walba intii uu dhalay buu gaar ula faqaya. Iyadoo xaalku sidaas yahay, qabiilkaad u tagtaaba haddana wuu ooyayaa. Haddii aad weydiiso waxa uu ooyayo, waxa uu ka odhanayaa dawladnimo ayaan u baahnay. Haddaad ku tidhaa dawladnimo waxaad helaysaa marka aad maalkaaga, maskaxdaada iyo muruqaaga u hurto ee aad deecdo, cid kula yaabta mooyaane cid kuu garowda wax yar baad arkaysa. Qabiilkaad u tagtaaba marka uu ku xijiyo kadib wuxuu hadalkuugu soo gunaanadayaa, ma annagaa ugu horreynaynaa, horta kuwa kale ha sameeyaan. Qabiil kastaa waxa uu sugayaa inta qabiilooyinka kale khaladka joojinayaan, qarannimada oggolaanayaan, qabyaaladda iyo eexda daynayaan. Haddaba marka xaal sidaas yahay, saddexda su'aalood ayaa mudan in la isweydiiyo. 1. Intee laga helayaa dad aan qabiil ka dhalan oo dawladi dhashay, iyo duunyo aan qof ka iman oo dawladi leedahay? 2. Haddiise la waayo, suurtagal ma tahay in dad qalaad iyo duunyo qalaad dawlad lagu dhisto? 3. Sidee qabiilku u fahmi karaa in dawladnimadu tahay qabiilooyin mideeyay awooddooda oo dhan, mid dhaqaale, mid maskaxeed iyo mid muruqba? Iminkii haatanna dhagaystayaal waxa aynu u gudbaynaa maansadii aynu had iyo jeer barnaamijka kusoo gabagabayn jiray, oo ay tahay maanta maansada aynu soo qaadanaynaana maansada magaceeda la yidhaahdo dawladnimo. Waxay tidhi: cilmiga derajada leh iyo cuudkaa la dareershe iyo caqlibaa waxdaadahshee, intaasoo laysku dumay, intaasoo laysku daray, haddaan qaran lagu dadbayn miyay dawladnimo jirta? Haddaan duunyo loo hurayn, dadkeedu u hagar baxayn, haddaan diin lagu hagayn miyay door noqon kartaa? Haddaan daacad lagu wadayn, haddaan daw lagu marayn, wixii daran lagu saxayn, haddaan dulmi lagu tirayn, dembiilaha lagu xidhayn, jahliga lagu dabar jarayn, danyar lagu korinahayn miyay dawladnimo jirta? Haddaan duunyo loo hurayn, dadkeedu u hagar baxayn, haddaan diin lagu hagayn miyay door noqon kartaa? Wixii dura kaa khaldamay haddaan deris laga dhaxlayn, wixii maalintaa dayacan haddaan laysku duwi karayn, dambaysiya waaga hadhay
haddaan dadab lagu ceshiyo duug iyo talo loo qorshayn miyay dowladnimo jirtaa haddaan duunyo loo hurayn dadkeedu u hagar baxayn haddaan diin lagu hagayn miyay door noqon kartaa haddaan ruuxii dacfara wuxuu falo diidi kara nolosha wacan doorin kara dunuubaha faafin kara kala dili kara bulshada haddaan dabar lagu xidhiyo difaac loo heli karayn miyay dowladnimo jirtaa haddaan duunyo loo hurayn dadkeedu u hagar baxayn haddaan diin lagu hagayn miyay door noqon kartaa marbaa deelqaaf dhacaa samaantu marbay didaa colaadu dabelelisaa xumuhu dhiig daadiyaa haddaan cudud loo dirayn hoggaan wax dalbadan lahayn nabad lagu diirsan karin miyay dowladnimo jirtaa haddaan duunyo loo hurayn dadkeedu u hagar baxayn haddaan diin lagu hagayn miyay door noqon kartaa barnaamijkeennii kasmo iyo kaskaaga intaas buu inoogu egyahay waxaana idinla socodsiinayay anigoo Kaysa ah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh